السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أو وناكسن داود هل كان يا سعتان وناق قيسك آلا ونغبرتين أرمحي سلا إيه برنامج شخصي كلياه aaba shalay wiilkiisa ku dilay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa uu sheegay in dilkiisa uu go'aansaday kadib markii uu naftiisa uga cabsaday Bashiir Cali Daahir ayaana warkan inoo soo diray taliska saldhigga degmada Jowhar ayaa faahfaahin ka bixiyay soona bandhigay aaba wiilkiisa ku dilay webiga Shabeelle waxaana taliska saldhigga degmada Jowhar ay tilmaameen in ciidamada booliska ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan aabahan wiilkiisa dilay aabaha wiilka dilay ayaa lagu magacaabaa Maxamed Daayow Aadan halka wiilka uu dilayna lagu magacaabo Xasan Maxamed Daayow taliyaha saldhigga degmada Jowhar Maxamed Siyaad Cali Anjah ayaa ka warbixinayo dhacdadan ka dhacday magaalada Jowhar ee aabaha wiilkiisa ku dilay degmada Jowhar waxa dhacday aaba ayaa wiilkiisa dilay wuxuuna u adeegsaday webiga waa qabtay waa xirxiriyay webigu ku xidhiyay marka saadarteed waa dhibaato ka dhacday magaaladan ilaahay waxaan ka baryaynaa inaynu soo noqon hadda koor hore u dhacday marka yaani waa dhacda laga argagaxo waxa la yiraahdaa marxuumka magaciisa waxa la yiraahdaa Xasan Maxamed Daayow waxaana dilay aabihiis Maxamed Daayow Aadan marka saadarteed maanta shirkada jira halkaas ku saabsan yahay ciidamada booliska waa dadaaleen habeenkii adiga xilli dambe la soo wargashay habeenimo waa dhaqaaqnay muddo ka bacdi ninku waa baxsay wuxuu aaday beeraha u dhaxgaliyay adiga ilaahay qadartiis dadka shacabka la shaqeeyay waxayna siiyeen fursad meel ka soo istaaga waan la soo wacay waxaana la meel hablo maru haya waa ka daba tagnay mootoon oo qaadana gaadiidka booliska ma adeegsan waxaan u adeegsanay qaab farsamaysan oo yaani qarsoon waa ilaahay markiis waana ku guuleysnay waa soo qabanay haddana ciidamada booliska ayaa gacanta ku haya aabaha dilay wiilkiisa Maxamed Daayow Aadan ayaa ka warbixiyay ujeedada ka dambeysay inuu dilo wiilkiisa halagu soo qabtay wiil aniga dhala oo cabtay noqdo halaysa oo beeraha anigana naftayda qalqil giri xoolaheedina laay 9 saacaad oo sacir ma yahay iga qashay muslimka diriska ahayna xoolihiisa laay sida markasta wax uu guday daalay qarashkeeda wax dheefkeedina ku dhamay alla hadii dhahna ka leexa way oo cabtay oo qolada xashiishka cabti noqday adigu ku dhaafi ma dhar dhaafi ma hayehe xoola dhaafi ma xoolaheedu waaba laayba tolki kala dhaafi ma abaal dhaafi ma muslimkii oo dhan ay la hura lugta marsi macal xoolaheed 20 jir waa nin garabka ku qaada waan anjaxayo nimankan ay yaqaan waxa ugu kallafay naftayda iyo xoolaheeda iyo dadkii oo tolka ahay oo beeraleyda masaakiinta oo baabi hadda saaca markii dambe waxa keenay in aniga oo diritaan oo warxumo iyo aflagaadi iyo waa kutuma iyo waa ku dira gacnaha iyo lagu hakay ma ya dhagax ku mexna ma ku mexna dhagax ma u soo noolaa ku waxba gaarsiinaha